Vladimir Putin waa madaxweynaha hadda ee dalka Ruushka. Magaciisa oo buuxa waa Vladimir Vladimirovich Putin. Wuxuu dhashay 7 bishii 10aad sanadkii 1952 wuxuuna ku dhashay magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka. hooyadiis waxaa lagu magacaabi jiray Maria Ivanova. hooyadiis waxay ahayd shaqaale warshadeed. dhaqaalaha qoyskooda oo yaraa awowgiis aabihiis dhalay wuxuu kariye u ahaa hogaamiyihii midowga Sofiyeetka Joseph Stalin. kadib wuxuu ka codsaday in wiilkiisa loogu daro ciidanka badda, sidaasina ayuu ku galay ciidanka. waxaa la dhashay laba wiil oo ka weyn, laakiin waxay dhinteen markay dhasheen cudurka gowractada oo ku dhacay awgiis 1960 ayuu bilaabay waxbarashadiisii dugsiga hoose, halka uu 1968 ugu gudbay dugsiga sare. wuxuuna dugsiga ka noqday gudoomiye sababtoo ah wuxuu lahaa dulqaad iyo deganaan, taas oo soo jiidatay maamulkii iyo macallimiintiisii. 1972 ayuu bilaabay jaamacadda, wuxuuna ka bartay sharciga caalamiga ah. wuxuuna ka bartay jaamacadda Leningrad State University. waxay ahayd jaamacad dawladdu maamusho. wuxuu sii watay jaamacaddiisii ilaa darajada PhD. 1975 ayuu ku biiray hay'adda sirdoonka ee midowga Sofiyeetka ee la dhihi jiray KGB. wuxuuna noqday sarkaal sare oo ka tirsan midowga Sofiyeetka ilaa uu ka gaaray darajada gaashaanle dhexe. 1985 ilaa 1990 ayuu sirdoonka KGB u magacaabay wakiil u fadhiya Jarmalka Bari. 1991 ayuu gudoomiye ka noqday jaamacaddii uu wax ka soo bartay. muddo kadib wuu iska casilay jagadaas. dhammaadkii 1991 waxaa loo doortay inuu madax ka noqdo guddiga xiriirka dibadda ee magaaladii uu ka dhashay ee St. Petersburg. wuxuu ka qabtay mashaariic badan oo caan kaga noqday magaalada. wuxuu xilkaas hayay ilaa 1996. 1997 ayuu noqday duqa ku-xigeenka magaalada St. Petersburg, wuxuuna taageero weyn u hayay dowladda. dhammaadkii sanadkaas ayuu madax ka noqday ilaalinta hantida dowladda ee madaxtooyada Ruushka. kadib madaxweynaha Ruushka Boris Yeltsin ayaa aaminay, wuxuuna ka dhigay ku-xigeenka shaqaalaha madaxtooyada, wuxuuna hayay ilaa 1998. madaxweyne Yeltsin wuxuu kaga nastay shaqada culus ee madaxtooyada. dhammaadkii 1998 ayuu madaxweyne Yeltsin u magacaabay madaxa hay'adda FSB oo ahayd sirdoonka Ruushka, oo bedeshay hay'addii sirdoonka ee KGB. kadib wuxuu si buuxda ugu mid noqday xubin joogto ah laanta nabad sugidda ee Jamhuuriyadda Ruushka. 1999 ayaa loo magacaabay ra'iisul wasaare ku-xigeenka saddexaad ee Ruushka. madaxweyne Boris Yeltsin ayaa ku dhawaaqay inuu Putin noqon doono ninka bedeli doono, isagoo ku tilmaamay nin dulqaad iyo waxqabad badan oo dalka lagu aamini karo. waxaa mucaaradnimo xoogan kaga imaanaysay duqa magaalada Moscow iyo gudoomiyihii hore ee dowladda Ruushka, iyagoo doonayay inay iyaga bedelaan madaxweyne Boris Yeltsin. labadan siyaasi waxay dagaal siyaasadeed u galeen sidii ay uga horjoogsan lahaayeen in Putin madaxweyne noqdo. Putin wuxuu ku soo caan baxay markii uu dagaalka kaga adkaaday jabhaddii Chechnya. 2000 ayuu ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha dalka Ruushka. wuxuu ka dhigay 89 qaybood oo federaal ah iyo 7 degmo oo hoos yimaada, waxaana maamulayay dowladda Ruushka. 2004 ayaa mar labaad loo doortay madaxweynaha dalka Ruushka, isagoo helay 71% codadkii la dhiibtay. wuxuuna hayay xilkaas 2004 ilaa 2008. 2008 ayay dhammaatay muddadiisii oo mar saddexaad isma soo sharxi karo marka la eego dastuurka dalkaas. kadib wuxuu soo sharaxay saaxiibkii Dmitri oo ay xulafo weyn ahaayeen, wuxuuna ku guuleystay madaxweynihii. kadib ayuu Putin u magacaabay
ra'iisul wasaare. 2012 ayuu mar saddexaad isku soo sharaxay madaxweyne, wuxuuna ku guuleystay codad ah 63%. markii lagu dhawaaqay guusha Putin, waxaa gilgilay Ruushka mudaharaadyo waaweyn guud ahaan dalkaas, kaas oo lagaga soo horjeeday Putin. Putin wuxuu ka mid yahay madaxweynayaasha dunida ugu saameynta badan ahna kuwa ugu awoodda badan hadda.